waxaan soo booqday mid ka mid ah xarumihii ugu waaweynaa ee uu ka talin jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan daraawiishna ay fadhin jirtay deegaankan waxa la yiraahdaa Gurdumi waa halkii lagu shirqoolay oo lagu dilay darwiishkii weynaa Allah u naxariistay ee sayidka ku xigay Aw Cabbaas deegaankaas sidoo kale waxa ku aasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hooyadiis Arro Seed Magan taariikhda deegaanka Gurdumi iyo qisada ku duugan waxaanu ka wareysan doonaa mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo noo faahfaahin doona halkan waxa weeye waa baafkii dharka uu ku dhaqi jiray sayidku dharkiisa lagu dhaqi jiray dharka waa lagu dhaqi jiray waay cidii doontaa in makana ku dhaqata waay waa sida waa baafka biyaha saan baad raacinaysaa waad ku mirtaa oo meeshaan adeer waa meel godan oo sida baafka u samaysan wakaad waa digirgii buu leeyahay sagxadii buu leeyahay waad u jeedaa wataase meel la sameeyay baa mise kana waa mid iyaga samaystay kana mid weeyaan waa baaf kale kana waa baaf kale weeyaan okay waa kan fiiri waa kan baaf kale waka waa meel si rabaani u samaysan waa sida jiib biyaha lagu shuman jiray dharkii ku dhaqan jiray daraawish waay taasina waa ina soo waqtan haye halkaan maxaa naga xiga waxay naga xiga taaladii Cabbaas bay naga xigta Aw Cabbaas ninkii darwiishka haayo la dilay intuu go'aysa soo hawiyay soo damel rabo in loo dhigo lagu dilay Soomaaliya taariikhdu waka Aw Cabbaas soo deenkii Aw Cabbaas deen kuma qalmaa daahirkii Aw Cabbaas soo daahirkii Aw Cabbaas deen kuma qalmaa qoliyaha ciidan ogaadeen buu aad ugu dhaaranay waqtiga soo daahirkii waxa kamid ah gabaygiisa aan ka xasuustaa wariyaha reer dal la doonayo duulan bixinaya dad iyo duuyo yaa reer subeer duba ka siinay yaa diinta eebiye sharciga diriray oo raacay soo dagaha Haarun Madagil ceelka daratoole danoo soo guraasi iljeex deera kama foofin soo daahirka Aw Cabbaas deen ku maqan halkan waxa weeye waa taaladii Aw Cabbaas sidayna yiraahdeen Allah u naxariisto halkan ku aasan yahay halkan ku aasan yahay halkan lagu dilay inay halkan eegada waxa yiraahdeen waa taaladii bana in laga qaaday meeshii la dhigay yaa lagu tilmaamay geedkuna uu taagnaa Aw Cabbaas adeer taariikhdiisa waxay hadaan dul istaagno macna intee la eg ayuu daraawish u lahaa ama ugu fadhiyay aad iyo aad nin qaali ah waay waka haye nin qaali ah yoo ahaa wuxuuna ahaa ku xigeenkiisii isaga Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wasiirka ninka ku xigay buu ahaa Cabbaas ku xigeenkii buu ahaa ku xigeenkiisu Aw Cabbaas saasay yiraahdeen markii la yiri sayidka waan kula heshiinanaa dhankan galbeedka iyo ciidaha halkaan degan dadka halkaan degan taariikhda sida aan ku maqlay heshiis nabadeed ayaa waxa la yiri waa kula galeynaa daraawish noo imow sayid halkaan ba waxa la yiri waa lagu ballamay oo shirka halkaan ka dhacay kadibna show ciidaha halkaan deganaa waxay rabeen inay shirqoolaan adigu waxba dhacay waxba dhex maray eegada dadku way isku dhacay Soomaaliya eeg dawladdu siday nabad u tahay bay afgambiye wax ka dhacan waa sax si fiican bay kolkii hore u wada joogeen oo u falgaleen oo la wada joogay marka waxba yar dhex galay waka si yar deedna isku dhacda yimid shirqool bal rabay sayidka lagu dilatay Aw Cabbaas ma kala dilay Aw Cabbaas ma dhintay Allah u naxariisto saas oo goormee ku beegan tahay waqtiga halkaan ay deganay daraawishada waxay ku beegan tahay waxay yiraahdeen 1900 ilaa 14 iyo meelahaas saasayna yiraahdeen filaya 1914 meelahaas waqtiga daraawish burbudhay oo sayidku dhintay 6 sano ka hor yahay meelahaas ay biinayeen waa markii uu ka soo noqday bari iyo dhankaas ka soo noqday wuu adigu haadee xagga xarunta waa tiilan xarunta weyn Taleex bay waa sax marka ta kale ee fadhiga kale halkan waxa gabaya badan buu iyo magaca oo Cabbaas uu soo mara waay ninkii shirqoolka nin baa ogaaday Cabdi Garaad la oran jirayo sayidku deedna dib u yeedhay oo kan oo ku xigeenka ahaayo booskii soo buuxiyay iyo ku dhacay waay gandaalkii ku dhacay lagu wada warankii haye marka isagoo dhanna uga calaalaya dhanna ka calaalaya dhanna dee wax tusaaleynaya ninkan marka ninka u yeedhay wiil u dhalay baa yimid daraawiishtii yimid oo wax doon ah waay ninkaas baa inoo yimid baa la yiri oo in Cabdi Garaad waay gabay buu deedna gabay buu kolka yuu tiriyey sayidku waay gabaygana taasan deedna wax yar ka soo qaadanayna waay maxaa kamid ah wuxuu kamid ahaa wuxuu yiri maalintii ogaadeen sidii obay boobayay maalintii adduunkii dhaceen ariya geeliba maalintii Cabbaas ku ajaleen awlixi waranka arbo ina Garaad Yuusuf baa aanaday galay waatu akhbaartii yiri aaminka ahayd wuxuu iga soo digayna waa oglihii farasa inkastoo axmaaro u galay faranji aanaystay isaga iyo inaan ku dhalaba
wow abaalgudiya afka wuxuu ka dooniyo wuxuu uurka raba siiyo ruuxii loo xisaan falhayaba inagu dheereeyay buu kula dardaarmay inagu dheereeyay ha waay ka marka aw Cabbaas waa ninkaas ninkaas oo ahaa Allah u naxariisto ku xigeenkii sayidku ahaaba inay yiraahdeen sidaas oo Allah u naxariisto taladiisina wata kan geedkan hadda aan hoos taaganahay kan aan hoos taaganahay ku khudbadin jiray kursigaas ugu fadhiisan jiray bal dhayaxana tus adag dhagaxa waa kan waay kan kalena waa kan muxuu yahay kan waa kii uu ku fadhiisan jiray weeyaan waay sayidka ku fadhiisan jiray ku fadhiisto bal aan ku fadhiisto inaan sayid noqdo bal inaan sayid noqdo haye sida aan ku sheegay imika dhowr iyo 50 sanadood baan anu galay daadayda dhowr iyo 60 baan ahay waay dhagaxaas isagoo sidaa u yaalan baan u haye aabahay baa igu yiri sidaas oo ahaa aan ugu mid kaahin baa u sii sheegay daraawista kamid ah isagana waay oo raggii halkan joogi jiray ninkii xujooyinka ay isugu yimayn jireen uu yiri kaahin xeerada kaahin dadku waad maqashay baan u maleeyo xeeradii kaahin gudum yaa laga dhigay xeeradii kaahin baa la yiraahdaa waxay ahayd 100 xeer uu yiri 100 nin oo laac haye 100 nin iyo 100 xeer u sameeyay sayidku ninkii xeeradiisa laaci waaya wuxuu joobay buu yiri kaahin baa deedna yiri oo xujo badnaa baa yiri hooy midiiba kol baynu boobaynaa wili 100keenuba meel wax ku dhicin wala 100kiiba way madheen isku marbi boobay way kol midba kol bay gacanta gelinayeen 100kii xeeraba sidii bay ku laaceen gudumuran baa ka taliyay buu deedna yiri sidaas ay shaqada